Dokumentarigan wuxuu ku saabsan yahay nolosha Samatar oo ah 16 jir agoon ah haba ku koro nolol saboolnimo ah qoyskiisu way jeclaayeen balse aabihiis wuxuu dhintay isagoo aan qangaarin sidaas darteed ma haysan qof haga oo ugu daydo tusaalayaasha nolosha iyadoo uu isku dayay inuu walaalihiisa ka yaryar u noqdo qof ay ku daydaan si kastoo kareenkiisa ayuu isugu dayay inuu caawiyo qoyskiisa isagoo rajaynayay inuu ka faa'iideysto fursad kasta oo uu heli karo si uu wax ugu kordhiyo nolosha qoyska kooxda xaq jirka ah oo ugu faa'iideysanaysa duruufta nolosha haysta ayaa ka dhaadhicinaysa fikrado qaldan si uu uga mid noqdo marka uu kooxda ka mid ahaado ugu badnaan 2 sano oo ay u cadaato in la qalday beenna loo sheegay ayuu quumameynaya wuxuu go'aansanayaa inuu qoyskiisa iyo bulshada dib ugu noqdo silac kadib way u suurtogelaysaa taas xarunta dhaqan celinta soo dhiibayaasha qaranka ayaa ka caawinaysa dib u kaabashada noloshiisa waxay baraysaa xirfad u suuragelisa inuu noqdo qof isku filan bulshadana u ah muhiim Samatar wuxuu xeebta kubad kula ciyaarayaa saaxiibadiis caruurta iyo dhalinyarada sidaas ay galab kasta oo jimco ah ugu damaashaadaan xeebta iyo barxadaha magaalada hadba meeshii u suura gasha ay waqtigooda iyagoo koox ku qaataan dabaasha iyo nooc kasta oo maaweelo ah oo ay ku faraxsan yihiin ayay wehel ka dhigtaan maadaama ay ka nasanayaan toddobaad ay mashquul ku ahaayeen waxbarasho galabtaas waxaa Samatar xeebta ugu imaanaya aadan oo ka mid ah saaxiibadiisa xaafadda oo 2 sano ka weyn wuxuu kooxda xaq jirka kala shaqeeyaa inuu u qalqaaliyo dhalinyarada ay xaaladooda saboolnimo ee qoysaskoodu liidato kuwa ka saaqida waxbarashada kuwa gidaarada ku dayacan iyo kuwa ay duruufaha kale ee nololeed haystaan Samatar iyo aadan gaar ay isla baxayaan waxaana dhex maraya wada hadal kooban wuxuu ka dhaadhicinayaa ku biirista kooxda xaq jirka ah inay u horseedi doonto guul iyo farxad sida marar badan oo horeba dhacday dhaqaale fiican oo hooyadiis uu ku caawiyo inuu heli doono isaguna uu noqon doono nin awood badan oo wuxuu doono hanan kara ayuu u raacinayaa Samatar wuxuu u riyaaqayaa oo soo jiidanaysa fursadaha dhaqaale ee loo sheegay iyo awoodda uu aaminsan yahay inay ka dhigi doonto nin isku filan oo gaarkiisa noloshiisa u maamusha aadan si uu dacaayadiisa u xoojiyo wuxuu taleefankiisa tusayaa Samatar sawirrada rag karti ay ka muuqato oo xaq jiriin ah iyo sawirrada dad ay wada yaqaanaan oo horay ugu biira kooxda maantana maalqabeena ah awoodna u leh inay quwad ku difaacaan qoyskooda iyo dadka kale ay jecel yihiin wuxuu u sheegayaa inay guulahaas gaareen markay ku biireen kooxda Samatar wuxuu dib ugu noqonayaa gurigooda si uu hooyadiis uga caawiyo xareynta agabka iyo qudaarta ay ka ganacsato maadaama uu gobolku sii dhacayo waa miis yar oo isaga iyo waxa dul saaran habeenkii la xareeyo subaxina banaanka la soo dhigo waa qoys isjecel oo ku faraxsan isu heshigooda iyo iscaawintooda marka uu hawsha la dhameeyo hooyadiis waxa uu soo fariistaa dhagax yaala banaanka gurigooda oo ka samaysan jingadda kaligiis ayaa meesha fadhiya oo ka fikiraya hadalkii aadan Samatar wuxuu ka soo jeedaa qoys sabool ah oo ka kooban walaashiis ka yar oo lagu magacaabo Hibo oo 14 sano jir ah walaalkiis Axmed oo 6 sano jir ah iyo hooyadiis Aamina wuxuu qoyskiisa u yahay wiil wanaagsan iyo walaal la jecel yahay Samatar wuxuu ka mid noqday ardadii ku baastay imtixaanka dugsiga dhexe ee sanadkan loo diiwaan galiyay inay bilaabaan dugsiga sare aad buu u jecel yahay waxbarashada iyo inuu wax badan ka ogaado nolosha adduunka walaal waxaan walwalaawayahan hooyo ayaa ilaa xilada maalintii shaqaysa si ay u hesho lacag fiican nolosheena ay u dabarto ilaa xilada maalinimo ay baxda shaqo ani xitaa waan arkay wayna xanuun badan tahay inay waxaas oo dhan kaligeed qabanayso okay dib laguma waaro waan ka gudub doonaa caqabadan aniga ayaana garab istaagi doonaa hooyo maadaama aan ahay uradka qoyska aan ahay talo iskuma ka sheegta ayaa leeyahay aniga ayaa fikrad hayo iskuulka ayaan joojinayaa si aan hooyo uga ilaaliyo dhibka haddii aan saas sameeyana kama fikiri doonto lacagta ay iga bixiso waxbarashada
maya walaal muwaalanta suurtagal maaha taas. Intii aad taas samayn lahayd aniga ayaa waxaa raadsanayaa shaqo halgelin ah si aan geliga dambe u caawiyo reerkaan u caawiyo hooyo. Samatar waxaa tahay walaal fiican oo mar kasta ka fikira daryeelka farxadeena. Okay, waa mahadsantahay walaal. aniguna waan kaa warhaynaya, waan kaa warqabi doonaa noloshaadana farxadaadana waan ka warhaynaya maadaama aan ahay walaalkaa kaa weyn. maalin ay noqotaaba isku filnaansho waan gaari doonaa. dadaalaa wuu gaaraa baa layidhi. waan huwa walaal inaan heer gaari doono oon guuleysan doono. Okay, waa mahadsantahay walaal. diyaar waayo sidoo kale. Samatar wuxuu si aad isugu dayaa in walaalihiisa uu noqdo qof ay tusaalayaasha nolosha iyo horumarka uga daydaan, tii oo ay jirto inuusan isagu haysan haliyay uu ku daydo maadaama aabihiisu dhintay sanado ka hor. dhalinyaro badan oo xaafadooda degan waxay ka shaqeeyaan ganacsiyo ay qoysaskoodu leeyihiin, laakiin Samatar oo aad u daneynaya inuu qayb ka noqdo mas'uuliyadda qoyskooda oo hadda ay ku kaliyeysan tahay hooyadiis wax shaqo ama hayo. waxaa ku sii kordhaya walaaca uu arrintaas ka qabo, wuxuuna sugi la'yahay in la gaaro maalin uu awoodo in qoyskiisa uu caawiyo noloshoodana uu wax badan gacan ka geysto. لا وضع ما بسكله الحمد لله رب العالمين. إلهي ومسكا يركا وقدرتا أي بركة ومد بالله إلهي ويقدر إلهي ومسكا مدك درسك كأديك كان درس كودن كسر هران وكأديك كان إلهي ويقدر. Samatar wuxuu ka sii fikirayaa fursadii uu sheegay aadan, taas oo uu isu tusinayo inay tahay tan kaliya ee u suura gelin karta inuu hooyadiis caawiyo. hooyo Samatarow waa daalan tahay guriga intaad gashid oo quweyso seexan nasiina ayaa u baahan tahay. hooyo taas waxa iga fiican anigu adiga shaqada ka bedela, waayo waxaad u baahan tahay nasiino in badan ayaad soo shaqayso hooyo macaan. waad iga nasin doontaa shaqo gelina intaad ka helaysid hooyo, waad garabkayga istaagi doontaa orodoo seexo naso. okay hooyo taas waa waxaan waayahan oo dhan ku fakaraya inaan shaqo raadsado, waayo aan mas'uuliyadda reerkana kaalintayga aadan aan ka qaato. taasna waa muhiim hooyo, waana waxaan raadsanaya aan ku dadaalayo. waana waan kugu duceynayaa in aad noqoto garab buuxo oo aqoontiisii waxtarkiisii meel walba ka soo baxo. okay hooyo macaan waa mahadsantahay sida igu ducaysay, ducadaadana ilaahay ayaa aqbalo. hooyo macaan waa daalan tahay nasiina ayaa u baahan tahay or guriga gal hooyo waa ku duceeyay. ayo hooyo macaan diyaar waayo hooyo insha Allah soo meeranaya soo dhawaad. hayo hooyo waa ku duceeyay. aroorta hore inta aanay dadku soo wada toosin, Samatar oo dhowr shay oo dharkiisa ah bac ku ritay ayaa ka dhumanaya qoyskiisa. wuxuu aaminay hadalladii aadan, go'aan ayuu qaata ah inuu ku biiro kooxda xagjirka ah. wuxuu meel ay ku ballameen kula kulmayaa aadan. Samatar wuxuu qorshihiisu yahay inuu si dhaqso leh reerka ugu soo noqdo. marka uu dhaqaalaha loo sheegay ka soo helo kooxda, waxa uu arkaa inay fududahay arrintaas ah dhaqso inuu waxbarashadiisa iyo shaqada gelinka ah ugu soo laabto, reerkana uu kaalin wax ku ool ah uga soo baxo. Samatar iyo aadan waxay imaanayaan xere ay kooxda xagjirka ku tababaran dhalinyarada. markiiba wuxuu tuhmayaa inuu meesha ugu yimid isbedel ka duwan kii uu filayay. isagoo aan fariirsan ayaa waxa uu imaanaya oo kaxaynaya 3 nin oo hubaysan. waxaa loo geynayaa amiirka xerada oo u sharaxaya nidaamka meesha iyo qaybaha ay ka kooban tahay. amiirku waa nin naxariis daran oo hadallo kulul sida uu la hadlayo ayaa Samatar ku sii badinaysa cabsida. hase yeeshee wuxuu ku qasbanaanayaa inuu dhageysto oo uu aqbalo wax kasta oo uu sheego. maalmaha uu joogo xerada wuxuu indhihiisa ku arkayaa ficilo iyo habdhaqan argagax leh. waxaa hortiisa lagu ciqaabayaa dhalinyaro ay kooxda ka wada tirsan yihiin. cabaadka iyo calaacalkooda ayaa ka quusinaya nolol dambe oo raaxo leh. cafis iyo naxariis ayay ka baryayaan kuwa ciqaabaya, laakiin turaal ma helayaan. waxa u caddaanaysa wixii loo sheegay loona ballan qaaday iyo waxa meesha yaalla inay kala duwan yihiin. meesha uu yimid gogol quman iyo istareex ma leh. qalalaase iyo cabsigelin ayaa ugu weyn abaallada la iska waraabiyo. hubka sida loo adeegsado, shanqarta rasaasta
iyo qaraxyada ayaa ah dhawaqyada ugu badan ee dhegihiisa ay maqlaan. maalin maalmaha ka mid ah Samatar hooyadiis Aamina waxaa miiska ay ku ganacsato ugu imaanaya haweenay ay daris yihiin kana mid ah macaamiisheeda magaceeduna waa Muumino. xaaladda qoysaskooda iyo waayaha nolosha markay in yar iska wareystaan waxay haweenaydu ka wareysanaysaa xaaladda wiilkeeda Samatar. dad badan oo xaafadda degan way og yihiin in muddo la la'yahay kadibna la ogaaday inuu ku biiray al-shabaab. sidee tahay Aaminoy, farxad ayay ii tahay inaan mar kale ku arko. xaaladda ka waran, waxaad u egtaa qof daalan, sidee wax u jiraan? Muuminoy, waan ku faraxsanahay aragtidaada. runtii xaalad adag ayaan galnay siduu wiilkayga iiga tagay, taas mana qabsan karo wax walba, taasoo iisii dheer walaaca maqnaashaha wiilkayga. waan ka xumahay walaal, wejigaada ayay ka muuqataa wiilka. hadalkaagaan ku xasuustay, wax warama ka heshay horta? maya, wax war kama helin sidii uu kooxaha ugu biiray. ilaahay soo nabad celiyo Aaminoy. waxaa jira barnaamij dhaqan celin ah oo loogu talagalay dhalinyarada isa soo dhiibtay isaga soo baxda kooxahaas iyagoo ka faa'iideysanaya cafiska ay dawladda u fidisay. waa wax fiican wax iiga sheeg. waa barnaamij aad looga soo shaqeeyay oo waxtar leh. sidee ku ogaatay? waxaa jira barnaamij ka baxa idaacadda magaalada ku taalo oo looga hadlayo waxyaabo badan oo ku saabsan ruwaayada ayaa sidoo kale laga sameeyay. toddobaadkii 2 jeer aad ka dhageysan karta idaacadda. waxay sharaxaad caawintooda ku bixiyeen sida ay u dhisaan mustaqbalka dhalinyarada la qalday. waan arkaa waa barnaamij waxtar leh. Muumino waxay sidoo kale uga waramaysaa Aamino walaalkeed Saciid oo isagoo daayar ku biiray kooxda balse markii dambe isaga soo baxay. markii ay dawladdu shaacisay inay cafinayso qofkii isaga soo baxa falalka kooxdaas ayuu isa soo dhibay. waxaa la geeyay xarunta dhaqan celinta ee magaaladeena ku taala. wuxuu xareysnaa muddo bilooyin ah. wuxuu soo baxay isagoo nin wax bartay oo shaqaysanaya ah, taasoo u fududeysay inuu naftiisa anfaco. waa arrin cajiib ah. waxaa la yiri war helaa tala hela. alla maxaa arrin fiican ii sheegtay. waxaa kaloo jira taleefan aad si bilaash ku wici kartid kaasoo kuu fududeynaya inaad tilaabo oo kugu sharaxo wixii aad barnaamijka ugu baahan tahay. ilaahay baa ii kaa soo diray Muuminoy, bal ii qor lambarkaas. waraaqooyinkan ayay ku daawacan yihiin nidaamka uu maraya iyo sida loo caawin doono markuu isaga soo baxa kooxahaas ee isu soo dhiibo dawladda. keen waan aqrisan doonaa. fiicnaan lahayda in uu ii soo baxo wiilkayga. waxaan geyn lahaa xarunta dhaqan celinta. yaani ka iloobin, waxaa jira kulana isugu imaanayaan oo ka soo qayb galayaan hogaamiyayaasha haweenka degmada iyo hooyooyinka wiilashooda isaga soo baxeen kooxahaas. ma jeclaan lahayd inaa imaado? wuxuu dhacayaa saacadu markay tahay 11 barqadii. wuxuu ka dhacayaa xarunta degmada bulshada. fadlan noo imo, aniguna waxaan ku bari doonaa dad kale. khayr allah ku siiyo Muuminoy. rajo badan oo aan qabin ayaad i gelisay. culays badan ayaad iga dejisay. waana imaan doonaa kulankaas. adiga mudan walaashay. Samatar wuu ku soo noqonayaa. waa wiil baari oo aqli badan oo naxariis badan, umana malaynayo inuu ku moogaan doono. walaal aad ayaad u fiican tahay. rajo badan oo aan qabin ayaad ii iftiimisay. haddana haddii uu wiilkayga ii imaado xaruntaas ayaan geen doonaa. waxaa xerada uu jooga Samatar lagu soo xirayaa Aadan oo ah ninkii ku qalqaaliyay ku biirista kooxdan. Aadan waxaa loo haystaa qalad uu galay. war aadan iyo waran seeta saax maxaa lagu soo xira? يعني هذا مرت إسيان بانديدا سيدس أوجد اللي بسوا حراني ومن ملنا تاسع دالت إنها تهاي سكستبنها هاتي وعنكوها يورنا هذا النزاع. ومحيا وركاس أمد بين إيش جالس سيد مركي ورانيه. نيو سمتر وانك حماي صاحب تاسم أحمد أن حد وحكي قوان كرنا. وعنكو شيء يعني وقتي وجود بس سوق قدرت كده عيسى وحال شيء إن لا بكسيد الدولة ده. سيد كله وح كمد هذا تريدينا وحنا كمد هذا ولا شاهبو. صورة قلمها بين بدي شيء ثاني مرلبات مرستحات بدين إيش شيء سأذنه. صاحب ها. هو. ما الله هو ما ولا شيء بكل ما تقرح عنيني. ورأينا هذا كم الله هو. لا. ولا شيء هذا متى ولا شيء إذا أنت على من قبل قبلها أنت على هي بقى
suurtagal ma walaashay ah mihibo kama samri karo bas waay aan meeshaan bas waay ka tegaya haddaan baxayaa haddaan jaanisar waan baxaya waa ka tegaya bas waay saaxib aadan waa baxaya ani saaxib waa ka tegayaa meeshaan bas waay anigu waan ka tegayaa ma joogay meesha walaashay ku dhimatay burina hooyada iyo dadkii aan laynayaa dhibaato intaa ha igu filnaato waa tegayaa ani saaxib waa ka baxayaa bas waay ma sii wadaya intaa ka badan bas waay aniga go-aan waa gaaraya bas waay bas diyaar waay waa gaaraya go-aan samater wuxuu ka qoomameynayaa go'aankii uu kooxda uga mid noqday 2 sano ka hor wuxuu xasuusanayaa walaashiis hibo waqtigii farxadda lahaa ay isla soo qaateen ayaa niyadiisa ku soo noqnoqonaya una diidaya harsi iyo hooyasho oo habeenkaas in la isuma geynayo mid ka mid ah dhalinyarada ay xerada ku saaxiibeen oo da ahaan ka yar isaga wax yarna ka soo horeeyay ayaa ku caawinaya telefoon isagaas ay isku kalsoonaanayaan oo isu sheeganayaan dhibaatooyinkooda iyo walaacooda labadan saaxiib marar badan oo hore ayay ka sheekaysteen inay meeshan ku soo qaldameen isla markaana aanay sahlanayn ku sii jirista nolosha mugdiga iyo silca badan ee xeradan samater waxa u suuragelaysa inuu xiriir la sameeyo hooyadiis inuu la hadalkeeda u xiiso marka laga soo tago ujeedkiisa ugu weyn ee halista la hadalkeeda ugu bareeray waa inuu xaqiijiyo waxa ka jira warka dhiilada leh ee uu aadan soo gaarsiiyey wuxuu rabaa inuu hooyadiis ka xaqiijiyo inay hiba nooshahay iyo in kale laakiin nasiib daro warkaasi wuu rumoobayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu wiilkayga ii soo celi ilaahu samataro nabad qaba ilaahu ii keen rabbiyo muumino ereyga ee tiri macnaha way dhiirigelisay dhiirigelin badan bay igelisay aad iyo aad baan ugu farxay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu adaa mahaddaa iskale ilaahu soo nabad qaba ii soo celi hooyo yaa waay hooyo waa samater ii waran samater ah hooyo ii waran khayr hooyo waan ka xumahay inaan ka mid ahada kooxda dhigtay daminkii ay walaashay ku dhimatay sidoo kale hooyo dad badan oo muslimiin ay saas kale waa ugu dhaceen midda kale hooyo meeshaan lacag kuma qaadano qarash ma laha maalin walba dhiig islaam baan galnaa marka hooyo macaan waan ka soo tegayaa meel duura hadda joogaa waan ka soo dhuuntay telefoonkan kala soo fogaada waxaan rabaa inaan ka soo tago soona baxo hooyo samater oo samir iyo iimaan allah naga siiyo walaashaahibo hadiiba aad jeceshahay in aad ka soo baxdo dabinkaaseeto waxaa jira cafis ay dowladda u fidisay dhalinyarada kula midka ah ee diyaarka u ah in ay isaga soo baxaan asaradaha xun hooyo cafiska waan maqlay laakiin waxaan ka baqayaa inuu yahay shirqool hooyo kan shirqool ma ahan waa mid dhaba okay hooyo hadda ayaan soo dhaqaaqayaaba haddaaban soo dhaqaaqayaaba haddaaban soo tegayaabaan ka faa'iidaysanayaa cafiskaas iyo fursaddaas haddiiba aad diyaar u tahay fursaddaaseeto waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iidaysata cafiskaaseeto oona ka heleen aqoon qoyskoodana wax u taray bas diyaar waayo hooyo diyaar waayo xirfadahaas iyo waxbarashadaasaan ka faa'iidaysanayaa waan ka soo tegayaa iina soo duceeyo hooyo waana ka soo baxayaa waana ka soo tegayaa hooyo meeshaan hooyo macaan waxaad tagtaa eena isku dhiibtaa xarunta kugu dhow ee ciidanka dawladda ay joogaan waxay kuu gudbinayaan xarunta nabad sugidda waxayna kugu samaynayaan baaritaan markay caddaato in aadan halis ahayna waxay kuu soo gudbin doonaan xarunta dhaqan celinta waxaa fududaanaysa in aan kula kulanno ee noloshaada caadigana ay soo noqoto bas waayo hooyo diyaar waayo waan isku dhiibayaa waana u tegayaa meesha igu dhow waan ka soo gelaya xerada oo ciidanoo dawladda baana ka soo gelayaa cafiskana weydiisanayaa ee hooyo macaan iina soo ducaa adiguna hooyo macaan inuu ilaahay nabad igu keeno igana soo bixiyo meeshaan si fudud waayo hooyo iska ilaali halista aad sheegtayna inuu baxsid kuu keen karo haye waayo hooyo macaan haye waayo ii soo ducee hooyo macaan ii soo ducee hooyo haye
rajo ayaa gelaysa markay u sheegto inay jirto xarun lagu dhaqan celiyo dhallinyarada sidiisa oo kale ah ee la qaldo siduu meeshaas uga soo tegi lahaa ayuu tashigeeda gelayaa iyaduna waxay ku caawinaysaa tilmaamo u suuragelinaya inuu baxsado samatar waxaa u suuragelaysa inuu yimaado isuna soo dhiibo xerada ugu dhowaa ciidanka xoogga dalka ay joogaan markay ciidanku hubiyaan xaaladiisa waxay u sameynayaan baaritaan caafimaad waxayna ku caawinayaan raashin iyo biyo wuxuu dareemayaa nasteexo iyo walwal la'aan waxaana durba u muuqanaysa farqiga u dhaxeeya xeradii uu ka soo baxsaday iyo tan u yimid marka uu nasto waxay ciidanku u sii gudbinayaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si baaritaan dheeraada loogu sameeyo samatar inkastoo ay weli ku jirto cabsida uu ka qabo kooxdii uu ka soo baxsaday haddana wuxuu ciidanka u muujinayaa wada shaqayn waraysiga lala yeesho wuxuu ku bixinayaa warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan xerada uu ka soo baxsaday dhaqanka ka jira cidda maamusha iyo sida dhallinyarada loogu silciyo nabad sugidda qaranka waxay baaris ku samaysaa kuwa is soo dhiibay iyadoo laga eegayo habraaca lagu qiimeeyo waxayna ku xiran tahay xaalado badan oo kala duwan oo ay ku jirto in laga eego heerka ay gaarsiisan tahay halista laga filan karo dhammaan kuwa is soo dhiibay waa la soo dhoweeyaa waxaana jira habab kala duwan oo loo diyaariyey kuwaas oo ay ku xiran tahay natiijada baaristooda tusaale ahaan haddii qofka isi soo dhiibay nabad sugidda u aragto in uusan halis ku ahayn bulshada waxay u gudbisaa xarunta dhaqan celinta haddii uu qofku ka yaryahay 18 jir meel dhallinyarada aan qaan gaarin loogu talagalay ayaa la geeyaa maadaama samatar uu kooxda ku biiray waqti yar ka hor si buuxdana uusan ugu go'in una qaadan siyaasadeeda fikradaheeda waxaa loo gudbiyey xarunta qaran ee dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha xogta uu siinayo ciidanka ee muhiimka ah waxay caddayn u noqonaysaa in samatar uu yahay qof isi soo dhiibay oo halis badan aan laga filanayn samatar waxaa loo wareejinayaa xarunta dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha waa meel hooy cunto waxbarasho iyo adeegyo caafimaad leh waa meel loo diyaariyey in lagu daryeelo noloshoodana lagu dhiso dhallinyarada la qalday ee fikradaha xagjirka ah laga dhaadhiciyey waa meel leh barxado loogu talagalay noocyada ciyaaraha sida kubadda cagta oo uu aad u jecel yahay si ka xeel dheer sidii hore ayaa xarunta loogu soo dhoweeyey samatar taas oo sii siyaadinaysa farxaddiisa iyo kalsoonidiisa dibna u soo celinaysa riyooyinkiisii mustaqbalka samatar waxaa si saxan loo barayaa diinta iyadoo maankiisa laga masaxayo wixii sida qaldan loo fahansiiyey sheekh liibaan oo ka mid a macallimiinta xarunta ayaa la kulmaya samatar wuxuu ku soo dhoweynayaa xarunta kadibna wuxuu u sharaxayaa cashirada diiniga ah ee uu xarunta ku bari doono samatar waxaan aad ugu faraxsanahay inaad timaado xarunta waa mahadsantahay sheekh liibaanow ma u malaynaysaa in la cafin doono hasiis ahaatee haddii la cafin doono aad ayaan u welwelsanahay waxaan ka welwelsanahay in aan nolosha hore ku noolaan doono mise waxaad iga faallootaa sida ay wax noqon doonaan ama sida ay noqon doonto xaaladayda dabcan haa waa lagu cafin doonaa sababtoo ah adigu hadda waxaad dooratay inaad qaaddo waddada saxda ah qofka haddii uu qaldamo waxaa ka xun inuu qaladkiisa ka soo noqon waayo wax badan ayaa diinta ka baran doontaa sidoo kale fursado ayaa lagu tababari doonaa kaa caawin doona inaad noqoto qof
madax bannaan oo isku filan. allahu akbar, waan ku faraxsanahay in aan ogaado in la cafin doono Sheekh Liibaanow. haddaba aan kuu kala sheego xirfadaha aad halkan ka baran karto. fursad ayaad u heli doontaa in aad si heer sare u barato qoraalka iyo xisaabta iyo sida loo horumariyo naqshadaha iyo ganacsiga, si aad hooyada uga caawiso inay horumariso meheraddeeda yar. sidoo kale waxaad heli doontaa farsamada gacanta sida barashada korontada, makaanika iyo wixii la mid ah. marka adiga intaasoo xirfadood oo kala duwan teebaad jeceshahay in lagaa diiwaan geliyo? okay, waxaan jeclahay in aan barto makaaninimada, sidoo kale waxaan jeclahay in aan barto ganacsiga. waxaan rabaa in aan caawiyo hooyaday oo dan yar, in aan caawiyo xilli kastana aan wax soo saar u sameeyo, in aan heer gaarana waan jeclahay ayadana. Sheekh Liibaanow, way fiican tahay inaan ogaado waxaad joogtaa meeshii ku habboonayd. waxaad kaloo fursad u heli doontaa in aad balooniga la ciyaarto xilliyada galbihiiya dhalinyarada qaybaheeda kale. aniga Sheekh Liibaanow waan jeclaa kubaddaas. muddo hore ayaad igu dambeysay oo 2 sano ka hor ayaa igu dambeysay kubadda. waan jeclaa inaan dheelo. ha ka cabsan, waad ciyaari doontaa, waad u tegi doontaa, laakiin waxaa muhiima oo lagaa doonayaa inaad si xilkasnimo ah cashirada u barato si aad u noqoto arday fiican. okay, waa mahadsantahay, waan qaadanayaa casharada. haddana waxaan aadayaa galaaska iyo fasalka. xirfado kala duwan oo kuwa gacanta ah oo xarunta lagu barto ayaa loo soo bandhigayaa, laakiin wuxuu Samatar dooranayaa makaanikada, taas oo la barayo. waxaa la barayaa xirfadda makaanikada oo uu ka dhex dooranayo xirfadaha kala duwan ee loo soo bandhigay ee xarunta lagu barto. waxaa loo diyaarinayaa in isagoo wanaagsanaaday uu dib ula midoobo qoyskiisa iyo bulshada. waxaa lagala shaqaynayaa inuu isku filnaansho gaaro, muhiimna uu u noqdo bulshada deegaankiisa. Samatar wuxuu ka qayb qaadanayaa tartamo kala duwan oo ay ka mid tahay kubadda cagta. kaalinta sare ayuu ka gelayaa tartamada qaar, wuxuuna guushaas ku helayaa bilad, taas oo sii dhiirigelinaysa dadaalkiisa iyo isku daygiisa dib u dhiska nolosha. wuxuu sidoo kale yididiilo iyo tusaale wanaagsan u noqonayaa dhalinyarada kale ee xarunta dhaqan celinta kula jira. wuxuu noqonayaa qof ay xushmeeyaan ardada kale, maamulka iyo macallimiinta. wuxuu diyaar u yahay hilowna uu qabaa inuu dib ugu noqdo noloshiisii caadiga ahayd, halkii uga tagayna uu ka sii wato. namarka koowaad galay waa ninka la yiraahdo Samatar Maxamed Cali. Samatar wuxuu madaxda xarunta oo wada shaqayn joogto ah la leh ciidanka nabad sugidda ka codsanayaa in loo ogolaado inuu booqdo qoyskiisa. waa loo ogolaanayaa iyadoo la qiimeynayo isbeddelka wanaagsan ee uu sameeyey iyo sida uga faa'iideysta casharada xarunta lagu siiyey. Samatar wuxuu ku faraxsan yahay isbeddelka iyo quruxda magaalada ka muuqata. wuxuu arkayaa dib u dhiska, horumarka, isdhexgalka bulshada iyo farxadda carruurta ka muuqata, taas oo si gaar ah uu ugu riyaaqayo. Samatar, Axmed iyo hooyo Aamina waxaa dhex maraya sheeko soo dhaweyn iyo isxalwaraysi u badan. wuxuu qoyskiisa uga cudur daaranayaa wixii uu sameeyey, wuxuuna muujinayaa inuu ka xun yahay dhibkii uu marsiiyey. qoysku wuxuu weli la kufaakacayaa noloshii adkayd. ganacsigii uu ku ogaa horumarkama aanay samayn hooyadiis. inay cafiyaan ayuu ka codsanayaa, iyaguna way cafinayaan. si kalgacayl leh ayay waqtigooda u wada wadaagayaan. hooyo Axmed, ka waran xaaladda seetihiin? waan fiicannahay hooyo, aragtidaada abshir ayay noo tahay. Axmed, ii waran walaal, seetaha nin weyn ayaan noqotay intii aan kaa maqnahay. ado waa fiicannahay, adiga seetahay? maasha Allah. hooyo, waxaan rabaa inaad cafiso dhibaatooyinka badnaa aan kuu geystay, maadaama aan niyad jab badan iyo dhibaato badan aad idiin geystay, khaasatan adiga aan dhibaato badan kuu geystay iyo niyad jab aad u badan in aad cafiso ayaan hooyo rabaa, maadaama aan ka soo noqday dhibaatadii. hooyo, maxaan wixii tagatiisimaad ma lahan, curudkayga aan jeclaa ayaa tahay. waxaan rabaa wixii aad soo martay inay tan cashar kuu noqoto. hooyo, waxyaalo badan ayaan soo bartay, cashar way in noqotay. hooyo, waxaan rabaa haddana waxyaalo badan ayaan soo bartay oo ganacsi ka mid yahay, oo aan casharo badan soo qaatay, oo aan in badan aan casharo soo qaatay. oo hooyo, xitaa waxaan rabaa in aan kusoo kordhiyo dukaanka
buugaag baan keenay waxaan rabaa inaan ku qorano dadka dukaanka saaran dadka deynta qaata dadka macaabiisha sida aan ganacsiga aan ugu kala qorano qofkii aan wax ku leenahay buug lagu qorayo qofkii dukaanka saaran buug lagu qorayo waxaas dhan hooyo waan soo bartay ganacsigaasna waan soo bartay waxaan rabaa inaan dukaanka kusoo kordhiyo buugaagtaas aan dukaanka kula garab qabto kulana garab istaago hooyo macaan waan ku faraxsanahay haddiiba aad mar wax soo baratay garabkaygana aad taagan tahay waa ii farxad hooyo macaan hooyo macaan waa mahadsantahay iina soo ducaa adigana hooyo waan dadaali doonaa ganacsigana heer weyn baan kaala qaban doonaa waana dadaali doonaa waana igu nasan doontaa dhibaatooyinka horena waxaan rabaa inaa hooyo iga cafiso hooyo macaan waan ku cafiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha aad soo baratay waxyaabaha tusaalaha ku ah inaad maanta i garab qabato aad iyo aad baan ku faraxsanahay hooyo macaan waa mahadsantahay samatar wuxuu noqonayaa la taliye ay ku soo hirtaan dhallinyarada xaafadiisa wuxuu xil iska saarayaa in qof dambe oo dhallinyaro ah aan xaafadooda laga duufsan kulamo joogtaa ayuu dhallinyarada u qabtaa wuxuuna si gaara saaxiib ula noqonayaa walaalkiis axmed oo uu wax badan uga faa'iideynayo xirfadaha iyo aqoonta uu xarunta ka soo faa'iidaystay samatar waxa uu dib ula midoobayaa qoyskiisa waxayna u damaashaa tegayaan badda iyagoo ay ka muuqato saansaan ah inay noloshoodu caadi ku soo noqotay